السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mar kale iyo qiso aynu ka soo gudbin doono channelkeena qisooyinka nadaara laba. maanta waxaan idin hayaa qiso dhaaftay oo kamid ah qisooyinka cajaa'ibka ah ee ka dhaca dunidan oo aanu si weyn u faaqidi doono si dad badan ay ugu cibro qaataan, dad badan wax ugu bartaan iyo sida ay xaaladaas u dhacday. shirkadda dhismaha guryaha ee Qibla Homes. shirkadda Qibla Homes waxay mashaariic ka wadaa Nairobi, South Sea iyo Mombasa, Nyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah. guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha. qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masaajid, madaraso, swimming pool iyo gym, playground, meelaha lagu caweeyo ama sitting area, wiishashkii, motor automatic ah, ceel biyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran. shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood ah oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay. wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo emailka shaashada kaaga muuqda. qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka uu qoray qoraaga la yiraahdo Abu Talaal Al-Hamarani. waxay ka dhacday wadanka Tunisia sanadkii 2017. haddaba qisadan waa qiso la yaab leh. wuxuu ugu magac daray qisadii la iibsanayay ragga. qisadii ragga la iibsanayay. laakiin sheekadan ku ogaan doonaa rag la iibsanayo macnaheedu muxuu yahay oo waliba dumar loo iibinayo. waxay dhacday 2017. haddaba yaana warkeedii ku daalinin. qoys ka kooban aabe, 2 gabdhood iyo xaaskiisa ayaa waxay ku noolaayeen wadanka Tunisia. aabaha wuxuu shaqaynayay shirkad xogaa mushaar fiican iska qaadanayay. gabdhihiisa ugu weyn waa 15 jir. waxaa la yiraahdaa Ghufraan. odaygii maalin maalmaha ka mid ah isagoo shaqadiisii u socda gaarigiisii wata ayaa wuxuu galay shil aad u xun kaasoo sababay inuu odaygu dhinto. shilka markuu dhacay kadib waxay dawladdu ogaatay in shilkan odaga laga gardarnaa oo gaari xamuul oo shirkad weyn ay leedahay uu gaarigiisii yaraa ku dhacay. waa waxyaabo badan. kadib qaadigii maxkamadda ayaa wuxuu xugmiyey in la siiyo lacag gaaraysa 100 milyan oo lacagta Tunisia ah qoyskan uu ka dhintay odaga. firsada 100 milyan inta dollar ay tahay ma garanay, laakiin wuxuu leeyahay waa lacag aad u fara badan. yaa la siinayaa xaaskii iyo 2 gabdhood oo odagu ka tegay. waxaa soo kale iyana lacag aad u fara badan siisay shirkadii uu muddo u shaqaynayay. shirkad uu aad u shaqaynayay ayaa idana lacag siisay qoyska. qoyskii waxay heleen lacag aad u fara badan, laakiin waxay waayeen odagii reerka oo shilkaa ku dhintay. maamadii reerka iyadu ma ahayn dadka galgalka badan oo maaragtay shaqeeya oo maaragtay waa loo kala dhashaa. kartida sideedaba dumar iyo rag ma kala laha. dumar waxaa jira ka karti badan ragga. nin gurigeeska fadhiya jira dalac bilaash oo meel u socda aan la garanayn, ma shaqayste wax walba hadaa siiso lacag waa iska soo halkaasuu iska yaalaa. iyo gabar karti badan oo shaqaysanayso reerka dhan iyada dusha u ridanayso waa dhici kartaa, waa jirtaaba. islaantu waxaa la yiri islaan waxay iska ahayd dadkan kartida leh aan ahayno odagaana shaqaynayo hawl u qabanayo ayada guriga uun iska joogto cuntadaas ciyaalkeeda u karsanayso waa guriga iska joogto. laakiin hadda shaqo fara badan ku soo baxday. gabdhihii korintoodii noloshii adduunkii oo dhan u furmay. wixii odagu ka hayay
ayaa bannaanka yimid in la qabto tahay shaqadii markaa dhexda u xiratay maamadii way dagaalantay waxbay isku xirxiratay ganacsiye samaysatay waa lacagtii waxay siriyay lacagtii shan kaalumin waxba business waxbay isku dadayday waxbay habaysatay gabadha marka weyn Ghufraan la yiraahdo ayaa waxay jeclaatay nin la yiraahdo Zakariya waa 24 jir iskuulka ka haray xaafadaha iska jooga qoyskiisu reer lacag leh ma aha waxa la yiraahdaa tabaqa mutawassita la yiraahdaa dabaqooyinkan dhexe ma iska yahay ciyaal xaafadeed way adiga umum waa ciyaal xaafadeed gabadhii yareed oo 15 jirka ayadu laba mar afka la galay dhig oo shukaansaday waa khalaas gabadhii maskaxda ka qabsaday hooyadii marka ay magaalada ka timaado ama meel ka timaado waxa aragtaa gabadheedii iyo wiilkan oo meel darbiya fadhiya ayagoo isla socda ayagoo wayaabta wiilkan gabadha mu kaaga ciyaara gabadhan yarta miskiinta maskaxdeeda maxaa samaysaa gabadhan ninkan ama boholka tuura islaantii markii way fakartay waxay tiri gabadhii u yeertay waxa ku tiri dhageyso wiilkan adarbiyada la fariisanaysid oo meelaha la soconaysid waa laga fiican yahay wiilka maxaa ka rabtaa waxay tiri hooyo waan jeclahay oo waabad yartahay iskuulkaaga inaad dhammaysato hawlahaaga dhammaysato waxay tahay jacaylkan 15 jir baa tahay bay waaba iska jeclaada aniga wiilkaas ma jeceshahay ma kaa dhabba anaa go'aan qaadanaytay habartu maxay go'aan qaadan marka go'aan soo wadaa wiilkii u yeertay kaale tirmaandow halkan ii fariiso waxay tiri gabadhayda waxaa kaala dhaxay kasoo gabadhaadu waan jeclaayo waa gabar edeblaho waa gabar fiicano waa gabar saaso ma jeceshahay tiri ma kaa dhabba anaa kuu guurinay tiri wax alla wixii arooska ku baxaya anaa bixinay madaxoo laalaadii u soo qaaday madaxu wuxuu yiri aniga lacag xataa aan labis ku soo gato maysto iska daa inaan aroos iyo biil iyo wax ka waxba laga ma raba tiri waa lagu labisayaa adiga gabadhaada guriga meel kamid ah degaysaan gaariyan ku gadayaa gabadha adiga aad magaalada ku aadaan wixii biil guriga ku baxay anaa bixinaayo soo diyaar garoowalin sheekadu waa isku soo dhamaatay gabadhii u timid waxay tiri ninkii saasaan ku iri hadduu ku jecel yahay ninkan oo jacaylkiisu run yahay anaa dhammaynayo waxa dhaw iskuursanaysaan anigoo gabdhaha masaakiinta aabahooda dhintay meel cidle ku dayacday hooyadood yaa laygu sheekaysanay haddaaba noloshaadii oo dhan ninkaanaan rabaa tiri ninkii waa kuu keenaa gurigan kuga soo xarayna hadduu isagu ku jecel yahay hadduusoo ku jeclaan isagaaba diidi doonata ma imtixaana waayo wiilkii marka wuxuu leeyahay saaxiibbuu leeyahay dhalinyaro saaxiibadiisa warniya wuxuu yiri gabadhii Ghufraan ahayd hooyadeeda saasay ila timid ka warrama mid walba marka fakaru soo tuurara aniga waxay ila tahay islaantu gabadha waxay ku ogtay meel kale gabadhu soo macbilaysatay marka adiga in maartay kaarka lagu marsadaa rabaa iska jir mida iska dhaha waa dhalinyaro de waa ogtahay mid kale wuxuu leeyahay waa iska ilaahay ku soo diray ka faa'iideysanayo annagu hadii hawsha jaaniska aan heli lahayn waa ka faa'iideey mid iska daacada dhahay mid walba waxbuu dhahay ninkan marka islaantii way u yeertay haye ka soo fakartay tiraaritaan markaasuu yidhi diyaar garow idhaahda waxaan u baahanahay marka 1 milyan oo lacag ah haye maxaa ku samaynaysaa labiskayga iyo waxayga yaan sii diyaarsanayaa meeshaan tagayaa jaakadaha waa tolanayaa wixii aan samaynayaa lacagaas kabaan kusoo gadanayaa waa isdiyaarinayaa markaan diyaar noqdaan kuu sheegay markaasaad maalinta noo goynaysaa arooska la qabanayo ma saas ahaa okay 1 milyan waa u dhiibtay 1 milyan ma loo dhiiba anag maba lahaayoba ninkii maalin labo saddex wiig marka la barayo ee maamadii yaabad tahay ee leedahay ninkii milyankii wala dhuutay ee maalin kale haddana is arkeen waraa kaale tiri adiga soo ballan ma lahayn see wax kaa yihiin
maama waa kugu soo noqon waayay maaragtay dhibaata igu dhacday maxay tahay dhibaatada kugu dhacday markii lacagtii aan kaa soo qaaday intaanan meesha tegin qola tuugaa dhex igu heshay lacagtii aan layga qaatay waana weji aan kugula soo laabtana waa waayay saasaan kaaga dhow marka hadda lacagtii ma lagaa dhaci tiraa maamadana waa imtixaan way kaa dabageynaysaa milyan kale waa kanaa tiri laba beriyaa haysataa hawshaa kusoo qabo dharkaaga waxaaga kusoo diyaarso weyn gudihiisa hawsha waa dhammaynaynaa ninkii milyan kalea loo dhiibaa daraa kii hor waa layga xadoo yidhi caafiya lir waa dhamaatay hawshaas wuu soo baxa nimankii saaxiibadii sacuudi maamadii waa hari laaday milyan aan dam siiyey milyan kale ii dhiibtay si aan uga haran male hadda markan haddii aan hawshaa qabtana waa lay dacweynayaa bas waa aabbaha iyo reerkayga kulli waa ceebaysnahay mar kale lacagtu waa iga luntay ma dhihi karo marka waa inaan labistaa tagaa meesha ninkaa marka niyadda waxaa uga jirtaa oo saaxiibadiis fakarkoodii uu qaatay naagtan gabadheedu waxbaa ka hadlaysan macnaha nin kale ayay soo martay gabadha adiga waaba lagugu cadaynaa oo kale macnaha shaaha caanaha lagu cadeeyaa marka shaahu markuu deertega alaabtaas waayaa leeyihi markaa waa lagu dardara naagta waxay lacagta la waalanayso gabadheediisan isku hubino waxbay ku og tahay waxaasaa ka dhaadhacsan ninkaan alcumuum sheekadii waa dhammaatay arooskiyaa laysku dubariday wixiyaa laysku dubariday gabadhii guri qurux badanaa loo dhisay gurigiyaa la geeyay ninkan marka habeenkii koobaad markuu guriga seexday habeenkii labaad seexday habeenkii saddexaad banaanka usoo baxay saaxiibadiisu soo aaday waraa laga sugayaa dee wiilashii xaafadda waxay leeyahay warka keene macalimadda ayadoo gabara maa u tagtay ayadoo hortaa lasoo boobsiiyey ma aragtay sidee wax u jiraan warka keenaa leeyahay macalinka xaafaddaa laga sugaa war wuxuu leeyahay ilaahayii khaaliqa ahaa ee abuuraya ku dhaartay gabadhaasu gabara ahayduu leeyahy aniga laftirkayga qarracma kulaha markaan arkay gabadha waxaan u haystay waxaan wax jacbura oo laii dhiibay anigana ka faa'iidaysaa islaa laakiin te gabadha gabar edebla oo qurxoon oo gabara hooyadeed intaasoo lacaga igu siisay anaa yaa bambe oo makaaruna haa ma qaara xili ma ku aaminayna niyo waxaaga waa qarsanaysaa naga dhaaf war maya wallaahi alcadiim ninkaa dhaarow iska soo jeex wax ka hadlaysan gabadha malo yar miskiinta waxa aan ka sheegayna wax ka jira ma jiraan ninkay gurigii kamaa boqor camala loo jooga isagii gabadhiisii gurigii galeen waa lais aroosay hawshu waa isku dhacday meel fiicanay martay gabadhii uuray qaaday wiilay dhashay maamadiina ganacsigeedii hawlaheedii iska wadataayo gabadhii gabgabtanahayd meelaha socotay wayba haraysay wiilay dhashay nin waxbarasha ma diida haa ninaan jeclaa matir ninkii intay u keentay qol ugu xirtay habar imtixaana waayo wuxuu tira meeshaada kula jir intaa banaanka lays istaagi lahayd hawshii marka waa isku dhammaatay gabadhii wiilay dhashay hawshii way socotay maalin maalmaha ka mid ah ninkii zakariya ahaa waa hal mar u isbedelay wiilka zakariya la yidhahdaa hal mar u isbedelayba ninkii wuxuu bilaabay gabadhii maadaama ay cunugu dhashay inuu maaragtay si uun uga lagu baxo muddadii uu joogayna xoogaa lacagaa iyo waxbuu aruursaday marka ninkaas wuu uga baxo muxuu rabaa gabadhii ula diriraa markasta guriga markuu yimaado wuu dilayaa wuu feerayaa gabadhii hooyadeed u dacwoonaysa waxaa hooya wiilkii waa isbedelayo habeenkii wuu soo daahaa habeenada qaar wuu soo dhaxaa markuu yimaado wuu idilaa saanuu sameeyaa maxaa sameeyaa waxaa leedahay ninkaasoo adiga ma dooran haa jacaylkaagii soo ma ahayn haa anisoo kuuma keenin haa iskaga dulqaadahee iska hayso amaa nacday weli maya wallaahi weli ma nicin haye haddaadan nicin intuusa iska jaajaafo oo meeshaada ku hayso naag walba ninkeeda ayadaa jaajaafatay meesheeda wax xun iyo mid fiican ba ayadaa isku haysatee isku hayso waxaaga gabadhii way adkaysan weyse wararaa loo keenayaa gabdhihii xaafadda waxaa leeyahay ninkii zakariya ahaa wuxuu samaystay saaxiib kale habeen kasta iyadoo la joogaa iyadoo saa sameeyaa meel heblaayuu tegay kanuu tegay gabadhii masayr waa wareertay markii damba wuxuu dhayso inaan kala tagno miyaa rabtaa war waa adkaysa waya dhadaanay dilkaaga iyo waxaaga inuu iska kay fura tiri maxkamadii alisla aaday waddanka tunisia marka sharci waxaa yaala lacagta markaa cunug ku furto iskama socon kartid nafaqo wax la yidhahdo dusha lagaa saaraa
intaasoo lacaga 350 lacagtooda ayaa bil walba wiilka u qoraysaa leen wadankana dee sharciga ka yaala nafaqadaas caadi ma ahan uu leeyahay ninka qoraaga sheekada wadamada qaar isku mid ma wadankaas marka cunugaaga haddaan nafaqayn weyso xabsiya mutaysanaysa waa lagu dhaadhicinayaa meesha dalaq lagu siinaya ninkii marka nafaqadii wixii uu soo qaaday waa ku qasbaya naagtii uu furay waa la soo kala tegay ninka marka lacagtii hadii xaguu ka keenaa cunuga iska ciyaal xaafado meelahaas ka socdo awalba islaantana meel geysay oo habaysay hadda marka banaankii ku soo dhacay lacagtina waa laga rabaa maxkamadii waa isku qataan qorta la isku la jira ninkan bilow soo jaajaafaa lacagti bisha kale xuraa igu yeesha waa lagu qoraalee waa bisha kale ninkan marka wuxuu u fakaray xudaniyo naagtan maalin walba lacagta ka rabta ma ka takhalusti walayskeeda ka degay balaayada baas cunugeygana anaa ka xaysanaa inta tiraa hooyada ayuu ma u geysatay markaa dhimad ninkan fakarka iska dhaadhicay gabadhii maaratay teleefonka soo diray stiil gabadha weli way kala tageen laakiin qalbiga way ka jeceshahay weli way rabtaa maalin amu soo noqdaa fiicnaada zakariye ay isleedahay qalbiga ka leedahay laakiin kan waa mid halaaga oo meel kale u socda markaasuu wuxuu yiri arintii nafaqada cunuga rabnaa inaan ka hadalno mustaqbalkeenina inaan bal iska wareysano wax walba way dhacaan xaaladu maaratay inaan bal wixii aan isla meel dhigi karno isla meel dhigno gabadhii okay tiri caaw markay waqtigaas taan ku imanaya oo dhahay gaariyaan soo kiriisanayaa meelaha magaaladan tagaynaa banaankeeda meel makhaayada aan ku soo shaahaynaa ku soo cashaynaynaa arrimaheennaan falanqaynaynaa inaan isku laaban karno wixii naga qaldamay sixi karno gabadhii oo iska daacad miskiin okay dhaha gabadhii cunugeedii iyo iyadoo wada jooga oo hooyadeed ay isla joogaan ayuu ninkii teleefonka soo garaacay gabadhii way istaagtay hooyo waxay tiri banaanka ka soo noqonaya wiilkiina meesha uga tagtay hooyadeed waa baxday baabuurkii ku dhacday ninkii wuu ka haystay magaalada banaankeeda meel uu geeyay waa la soo casheeyay waa la sheekaystay gabadhii waa isku laabanaynaa uu yiri wixii hore waa iska joojiyay gabdhihii aad maartay ka maseertay waa joojinayaa reerkeeniyaan dhaqanaynaa mustaqbalka cunugeeniyaan ka hadlaynaa gabadhii uu ku soo guray waa iska maskiin gabdhaha waa iska daacad waayahay iska tiri gurigooda marka intaan la soo gaarin meel waadi aha jira oo cidla ah waadiga waxa la meesha biyaha iyo waxa ay maraan meeshii markuu soo maraayay ninka midiya u diyaarsaneed uu soo degay gabadhii uu dilku bilaabay midii feeraha ka galiyay mid kala dhabarku ka galiyay mid kala qoortu uga jarayba nag la hawla wala quwwata ninkii waa meesha ku baabiyay gabadhii meesha ku khaarijiyay moogta uu dilay kadibna uu iska tegay ninkan yaa ogaanaa marka hooyadii gabadhii meelay ka raadiso habeenkii way soo dhaxday way yaabtay gabadheeda ma dhex jirin habeenkii labaad booliiskii u tagtay maamada cuntir gabadheedii waa la ahay booliiskii magaalada waa isdiiwaan geliyeen gabadha yaa yaqaan yaa ugu wardambay zakariya booliisku u yeereen su'aalay weydiin wuxuu aniga gabadhaas mar hore igu dambeysay goormee kuugu dambeysay 3 bilood ka hor maba is arkin oo yiri saan u kala tagnay waa maba arkin baa aniga masaasa ahaa bas booliiskii waxay ka qorqoreen way ka tageen markay dhowr maalmood maqan tahay gabadha ayaa waadiga nin jooga oo dadkan ciyaalka plastiga iyo caagadaha iyo ka aruursada meesha ayaa wuxuu arkay madax go'an iyo qayb kale jirka kamid ah iyo qayb xayawaan wax ka cuncuneen booliiskii u yar wuxuu meeshan jufa taala waa mayd ayaa yaala oo kala jarjaran kaalay imaado booliiskii way yimaadeen koox mutakhasisiin ku takhasustay arrimahaas oo soo diray waa la bixiyay daawooyin lagu shubay waa la qaaday waa la xareeyay wixii DNA-gi iyo dib u sharciga la marsiiyay islaantii loo yeeray waxa la yiri gabadhii ka maqnayd waan helnaa dhahay iyadoo meydkeedii jarjaray islaantii way qaracaan istajiyaleen waa baarayna sheekadan anaga ogaanayna bas okay waa la murugooday gabadhii cunugii yarka ay ka tagtay yaa dili kara
yaa cadow la ah gabar iska maskiina booliiskii ninka baaraha ah marka wuxuu yidhi muxsin aa la dhahaa kabtan waaye kabtan muxsin wuxuu yidhi wiilkan baasha kama dheera wuxuu soo ogaaday wiilka malafkiisa dhan in lacaga lagu leeyahay oo arrintan ay dhibtay biilkan nafaqada cunuga wixii oo dhan inay maaragtay saaxiibadii marka wiilka ayaa laga bilaabay baaritaankii waa lala sheekaystay waa loo yeeray ninka zakariya lahaa iyo gabadha qufraana maxaa ka dhacay mid ka mida marka saaxiibadiis wuxuu yidhi maalintii iigu dambeysay zakariya gaari madow ayuu wuxuu kasoo karaystay shirkad heblaayo wuxuu yidhi caawa ballanaan leeyahay muhiim ah marka gaariga 80 lacagtooda kusoo karaystay dhowr saacadood soo karaystay shirkadu ka soo qaatay shirkad heblaayo gaari madow oo noocaasa aan soo qaato yiri booliiskii marka ninkii kabtan muxsin ahaa meesha wax ka bilaabay shirkadii u tagay booliiskii shirkadu tagay ninka baaraha baarihii markuu shirkada tagay wuxuu ku yiri waqtigaas oo taariikhdu waqtigaas tahay gaari madow yaa idinka qaatay way baareen zakariya hebel la yiraahdo ayaa qaatay okay zakariya hebel waa qaatay gaariga taarikadiisa wixii oo dhan loo soo qoray kalarkiisa noociisa wixiisa dhan marka waxay yiraahdeen gaarigiina habeenka meesha uu tagay ma ogaan kartaan baalada baabuurta shirkadaha laga kiraysto waxaa ku xiran baal chip la yiraahdo oo gaariga meel kasta uu joogo ay shirkada kula soconayso hadday wax ku dhacaan haddii meesha ninka hadduu gaariga xada xataa gaari marmarka qaar shirkadu waa laga kiraysanaa inuu qofka xado isku dayaya waxaasoo dhan marka jiba ku jira computerkiyaa la galay ninkii baaraha meeshuu fadhiyaa gaariga marka meelihii uu tegay oo dhan guriga gabadha agteeda u tegay wuu ka tegay wuxuu tagay baa maqaayad wuu soo noqday meesha waadiga meydka laga helo ku hakaday cabaar uu joogay kadib wuu soo baxay xaafadda zakariya u tagay kadib gaariga shirkadda loo celiyay okay uu dhahay ninkii baaraha markii wixiisoo dhan xogtiisoo dhan uu haystaa ninkii zakariya loo wacay kaalaa la yidhi saaxiib waxaa la yidhi gaariga noocaasa oo madow oo taarikadaas leh saacadaas waqtigaas xagga ma martay xagga ma tagtay marka meelihii uu maray ee makhaayadii iyo eriyadii ayay booliisku kaamirooyinkii ku xirnaa sawiradoodii soo qaateen gabadhii oo la joogta caddayn kale maa dhiman asaaba gabadha ugu dambaysa habeenka gabadha la weynayo oo hooyadeed waa waaye ay leedahay waa habeenka ninkaan ay la joogta ninkii wixii oo dhan cadaymihii markii la agdhigay waa shoogay wuu naxay markaasuu qirtay marka anaa sameeyey waxaana u sameeyey cunugan iyo nafaqadiisa iyo wixiisa iyo waa ay dhibtay gabadhaas waa la qabtay cadaymihii lala qaaday maxkamadiyaa la geeyey qaadiga wuxuu ku xukumay xabsi daayin sababtoo ah wadamo badan oo caalamka ayaa waxaa laga joojiyay dilka marka meeshii qofkii qof dilo la dili lahaa carabahan iyo meelahan o dhan wadamo badana waxay yihiin qofku waxaa lagu xukumayaa inta noloshiisa ka dhiman xabsigaasaa lagu xukumay ilaa hadda xabsigiyuu ku jiraa lagu leeyahay zakariya marka maxaynu ka baran karnaa hooyadu ma saxnayd mise way khaldanayd inay gabadheeda iyadoo tixgelinaysa jacaylka gabadheeda ay nin usoo guuriso ay lacag ku bixiso ninkiina uu malagii gabadheedii noqday markii dambe khaarijiyey sidee u aragtaan arikaa maxaa laga baran karaa maxay idinla tahay haddaba tafaasiisha iyo sheekadan sida aad usoo falcelisaan aadaan u jeclahay commentiyadiina soo qora sheekada iyo waxaad ku aragteen asxaabay inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo qisooyin kale iyo janalkeena qisooyinka waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo shirkadda dhismaha guryaha ee qibla homes shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaa nairobi south sea iyo mombasa niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha
qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah. Guri kastana waxa uu leeyahay masaajid, madaraso, swimming pool iyo gym, playground, meelaha lagu caweeyo ama sitting area, wiishashkii, motor automatic ah, ceel biyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran. Shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood ah oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay. Wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali.